بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا وركانو دينكاينو بريغا أفريكا سفارة الصومالية ee dalkani Kenya ayaa shir jaraa'id ay qabatay ku sheegtay inay furtay xafiis cusub oo xiriirin doona qaxoontiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Kenya iyo dawladda federaalka Soomaaliya dhanka kale safaaradda ayaa sheegtay in baasaboorka Soomaaliya lagu qaadan doono muddo 15 cisho faafahinta warkaasina waxay noo hayuriyeena Khadar Shaam safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya Jamaal Maxamed Xasan ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in safaaradda Soomaaliya laga furay xafiis cusub xafiiskaas oo ah xafiiska xiriirka qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Kenya iyo dawladda Soomaaliya safiirka ayaa waxa uu ka warbixinaya ujeedka loo furay xafiiskan ujeedada xafiiskan aan u furnay waxa weeye la socotaan waxa jira heshiis saddex geesood oo ka dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya iyo hay'adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR waxaan rabnaa maadaama dad badan oo 200,000 qof oo Soomaaliya qaxootiga wadanka joogan qaarna ay xiriir ku jiraan kuwa kale magaalooyinka joogan in loo sameeyo xafiiskaas oo sida ku qoran heshiiska saddex geesoodka ay tahay in laga sameeyo halkan si uu u xiriiriyo dadka Soomaalida baahidooda iyo dawladda marka waxaan rabnaa xafiiskaas oo safaaradda ka furan in uu qabto shaqada ay u baahan yihiin dadka qaxootiga in loo qabto arrin rabnaa inaan ku celino mar labaad dhowr goor horena waa sheegnay qaxootiga Soomaalida Kenya jooga waxay celintooda joogidooda waxay ku saleysan tahay heshiiska saddex geesoodka ee labada wadan iyo UNHCR toodaxay waxa qofka qaxootiga Soomaaliga lama khasbi karo in wadanka lagu celiyo ikhtiyaarkiisu uu iman kara reerkii rabaan qoyska rabaan noqdaan iyaga imaanaya iyaga sheegay iyagana si meesha rabaan ku noqonay gudoomiyaha hay'adda qaxootiga qaranka Ahmed Abdikariin Nuur ayaa sheegay in xafiiskan cusub uu kala shaqeyn doono shirarka dhinacyada labada kala ah dawladda Kenya iyo hay'adda UNHCR dhinac walba oo ku saabsan qaxootiga haddana xafiiskii waan furaynaa xafiiskan shaqadiisa ugu horeysa ugu muhiimsan waxay tahay laba dhinac marka hore shirarka commissionka oo tripartite commissionka ama technical committeeska guddiyihiisa farsamo inuu hawlaha dhinacyada labada kala ah ee dawladda Kenya iyo UNHCR kala shaqeeyo ama ha noqoto heer secretariat level ama ha noqoto heer reporting iyo maaragtay xog ururis iyo xaaladaha dadku ku sugan yihiin qunsulka Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya Ali Bagadi ayaa sheegay in muwaadin walba oo Soomaali ah ku qaadan doono baasaboorka muddo 15 maalin waxaan rabaa inaan message halkan ugu gudbiyo maanta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya ha ahaadaan qaxooti ama ha ahaadaan ganacsato sidaad la socotaan saddexda bilood ugu dambeysay August, September iyo October dadkii baasaboorada apply gareeyay inay ka daayeen baasaboorada oo muddo ay ka maqnaayeen dadku xitaa aad ay ugu niyadjabeen waxaan rabnaa inaan idiin sheegno horta kala guur ayaa jiray waa ogtiin in xafiiskiisa bedel ka dhacay kadib waxaan galnay dhismo oo safaaraddan dib ugu haweenaynay marka waa taqaanaa mar haddii maamul ama wax isbedelayo gaab baa imaanaya hawshii hakad baa ku imaanaya marka waxaan rabnaa inaysan ahayn wax oo kale oo gaar ah aysan jirin ahayd cilada ay ahayd baasaboorada taahitaankooda kala guurkaas marka baasaboorradii la apply gareeyay August, September iyo October laatinkeedii waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa inay baasaboorradooda diyaar yihiin oo laga bilaabo maanta ay soo doonan karaan marka ugu horeysa midda labaad waxaan kaloo idin ballan qaadaynaa laga bilaabo maanta qof kasta muwaadin ah oo Soomaaliyeed ee baasaboor apply gareeya safaaradda ka apply gareeya inuu baasaboorkiisa u sugayo kaliya ugu badnaan 15 casho Qadar Shaam Kalsan TV Nairobi jaaliyadda reer Khaatume ee ku dhaqan dalkani Kenya ayaa xalfad ay qabatay ku taageertay midowga maamulka Khaatumo iyo Maakhir State munaasabadani oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay isla markaana ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee maamulka Khaatumo ayaa lagu taageerayay maamul samaynta gobolada Sool Sanaag iyo degmada Buuhoodle oo dhawaan shirkii maamulka loogu dhisi lahaa looga dhawaaqay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya munaasabadani oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin waxgarad aqoon-yahano iyo mas'uuliyiin tiro badan ayaa guud ahaanba waxaa laga soo jeediyay khudbado u badnaa taageerada midowga Khaatumo iyo Maakhir ee gobolada Sool Sanaag iyo degmada Buuhoodle dadaalka la doonayo in lagu mideeyo isla markaana lagu sameeyo maamul
goboleed ay leeyihiin dadyowga degan sool sanaag iyo degmada buuhoodle mowqifka iyaga ku aadan haddii aanu nahay jaaliyadda khaatumo ee nairobi waxa weeye 100% baanu soo dhaweynaynaa oo taageeraynaa sidii maamulkaasi uu u samaysmi lahaa cagihiisana isugu taagi lahaayeen isla markaana shucuubta ku nool sool sanaag iyo buuhoodle ay u samaysan lahaayeen maamul goboleed danahooda iyo arrimahooda iyo maamulkooda uga mas'uul ah waxaanu taageeraynaa oo taageero buuxda oo hiil iyo hooba aan ku bixinaynaa sidii loo midayn lahaa maakhir state iyo khaatumo state sidii khaatumo loo ballaarin lahaa sidii maamul buuxa oo ilaa iyo xeebta gaadha loo samayn lahaa baan taageeraynaa waxaan rabnaa inaan ku dhiiri karino madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed inuu taageero maamul u samaynta khaatumo iyo maakhir ummadan waxay u baahan tahay midnimo waxay u baahan tahay inay higsato ummadaha kale ee Soomaaliyeedna ay la mid noqoto cidna ku dulmayno cidna talada lagama laha laakiin muhiimaddu waxa weeye wax u danaynayo ummadan qofku inuu ka hadlo madaxweynihii hore ee maamulka Khaatumo Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel oo munaasabada soo xidhay ayaa sheegay inay muhiimad weyn u leedahay dadka degan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn midowga goboladaasi iyo sidoo kale Maakhir iyo Khaatumo State labada gobol ee Sool iyo Sanaag iyo degmada Buuhoodle haddii alla ku sameeyo ogol yahay dadka wada degaa haddii la doonayo maamulkeenu maamul haddii bidkeeda leeyahay taabagal oo muctarif inuu noqdo inay ka wada qayb qaataan muddo laga shaqeynay dad baa isu xilqaamay haddii alla ku sameeyo ogol yahay ilaahay khayr ha ka siiye dadaalkooduna mid noo midhan ha noqday waa la isu xilqaamay maantana waxay maraysaa dawladda federaalka ah iyo international community-ga inay raalli ka yihiin in haddii bidkeeda leeyahay halkaasi maxay ahayd noqoto dawlad goboleed cabdiraxmaan xuseen cadow oo u taagan jagada madaxtinimo ee maamulka loo samayn doono Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa dhaliilay guddiga farsamada ee dawladda federaalka Soomaaliya u xushay maamul samaynta goboladaasi horantii bishii August ayay ahayd markii labada gobernatore iyo wasiirada ka soo jeeda labada gobol la isku keenay Villa Hargeysa ee Xamar halkaas ay ku saxiixeen isku darka labada gobol Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxa jiray cabasho ama dhaliilo marka ay shacabka labada gobol ay soo jeediyeen taasoo ahayd in aan laga tashan isku darka labada gobol aan laga tala gelin dadku waxay rajaynayeen marka saxiix u dhacay wixii ka dambeeya inay dawladdu ay soo gaarto Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe halkaasoo lagu wada tashto laguna heshiiyo qaabka wax la isku darsanayo saad la socotaan gobolka Hiiraan muddo 7 bilood ka badan shir ayaa ka socday shirkaasoo dadka deegaanku ay qabsadeen oo dhaqaale tiro badan ay ku bixiyeen gulo tiro badan ay ka gaareen halkaasoo ay doonayeen state u gooni inay noqdaan sidoo kale Shabeellada Dhexe hami ayaa ku jiray dad badan oo degan Shabeellada Dhexe doonayeen Banaadir inay ku darsadaan oo Banaadir iyo Shabeellada Dhexe state ay noqdaan marka caqabadahaas ayaa jiray marka waxa la rajaynayay wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynaha iyo madaxda dawladda kala duwan goboladaas inay gaarto dadka fahamsiiso la fadhiisato la tashato talo midaysan halka ay ka soo baxdo nasiib darro 2 bilood kadib waxa lagu dhawaaqay guddi farsamo oo ka kooban 14 qofood kaas oo dadku maaragtay dhaliilo tiro badan ay ka muujiyeen dalka Ugandana madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayaa uga digay booliska dalkaasi Uganda inay ku xadgudbaan xuquuqda dadka rayidka ee dalka Uganda dadka rayidka ku dhaqan dalka Uganda ayaa cabasho xoogan ka muujiyay booliska dalkaasi Uganda dadkan ayaa sheegay in boolisku garaacaan xilliyada ay iskugu yimaadaan goobaha ay ka jiraan shaqadu dalkaasi Uganda ayaa xilligan ay ka socotaa diiwaangelinta dadka qaadanaya kaadhadhka doorashooyinka soo socda ee dalkaasi Uganda madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayaa booliska iyo guddiga doorashooyinka ugu baaqay inay ilaaliyaan nidaamka iyo xuquuqda dadka
dib u celinta qaxoontiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha Dadaab ee dalkani Kenya ayaa la sheegay inay hakisay dhaqaale xumo soo wajahday hay'adihii dib u celinayay. Faafahinta warkaasina waxay noo eegay wariyaheena Cabdulaahi Axmed. qorshihii dib u celinta qaxootiga Soomaalida ee dalka Kenya ayaa wuxuu wajahayaa dhaqaale xumo soo food saartay iyadoo hakad gelisay qaxooti badan oo doonayay inay dib u laabtaan dalka Soomaaliya. arrintan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo 40 wadan ay ka qayb galeen shirkii Brussels ee lacagaha loogu yabuuhay qaxootiga Soomaalida ee ku jira xeryaha Kenya ay yeeshay ku guuldareystay inay ku yabuuhaan lacagii loo baahnaa. dib u celinta qaxootiga ayaa waxa ku baxaya adduun lacageed oo gaaraya 500 oo milyan oo dollarka Mareykanka. dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ayaa doonayay inay lacagahan ku maareeyaan dib u celinta qaxootiga ku jira xeryaha Dadaab. shirkii Brussels ee toddobaadkii la soo dhaafay dhacay ay ka qayb galeen 40 wadan ayaa lagu yabuuhay 105 milyan oo dollarka Mareykanka. safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Pastor Jamal Hassan ayaa walaac ka muujiyay dhaqaalaha aadka u yar ee ka soo baxay shirkii Brussels oo lacagaha fara badan laga sugayay inay ka soo baxaan. dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR ayaa u kala saxiixday dib u celinta qaxootiga Soomaalida oo iyagu iskood dib ugu laabanaya Soomaaliya. waa tahay daawadayaal waxaan intaasi ku soo afmeerayaa wararkii aanu idinka haynay bariga Afrika oo aan idinka soo gudbinaynay stuudiyaha Kalsan TV ku leeyahay magaalada Nairobi. warkana waxa idin socodsiinaysay anigoo Igla Saalax. intaynu ku kulmayno warka xigana waxaan idinkaga tegayaa sida iyo amaana Allah.